دكتور هودن عثمان عبدي واقون يهند دقن دالك الشينها islamarkaana ka howlgasha maxadka daraasaadka Afrika ee jaamacadda Zhejiang Normal University ee dalkaasi ku taala waxay dhawaan soo saartay film documentary ah oo ka hadlaya nolosha jaaliyadda Afrikaanka ah ee Shiinaha ku nool iyadoo warbaahinta Shiinaha qaarkeedna ay fikrado khaldan ka aaminsanayeen jaaliyaddaasi dhawaan ayay soo boqotay magaalada London waxaan ku wareystay stuudiyaha BBC London waatan hodan oo ka hadlaysa ujeedada ay u sameysay filimkan iyo xaaladda guud ee Afrikaanka ku nool dalka Shiinaha filimkan ujeedada ugu weyn ee uu sameeyay waxay ahayd inaynu dadka fikradooda ka bedelno aragtida ay u arkaan nolosha ay ku nool yihiin jaaliyadda Afrikaanka ee Soomaalidu xataa ka mid tahay ee Shiinaha ku nool horta taas number 1 number 2 waxa weeyaan talabaad waa in aynu dadka xiriirka ka dhaxeeya Afrika iyo China iyo saameynta ay uu Shiinuhu ku leeyahay Afrika oo Afrikaankuna ku leeyihiin Shiinaha in la arko tasaddexaad in dhaqan kala fahmo runtii jaaliyadda Afrikaanka ee Shiinaha ku nool hadda qaar badan baa ragoodii dumar Chinese guursadeen dumarkoodiina niman Afrikaana guursadeen reality hadii laga sheekeeyo Chinese waa dad aad iyo aad dhaqankooda ugu adag ma jecla hablahoodu inay dhaqan kale soo galiyaan familiga oo ilmahoodii uu noqdo qof dal kale amba dhaqan kale sitaa oo wata filimkan duubnay waxa ku jira 3 story saddexda qisadoodba wiil Afrikaana oo gabar Chinese intuu isiri guurso oo family diideen yar Tanzania jira oo la yiraahdo Yusuf inankaasi inan jaaming la yiraahdo bay isbarteen markay isbarteen inantu waxay u dhalatay tuulo inankuna wuxuu u dhashay magaalo soo waad garan kartaa qof tuulo u dhashay fikradoodu xoogaa familiga waa dad aad iyo aad u adag soo dhibaatay u keeneen wiilkii inantii way ka ogolaan waayeen si kastaba waa la yeelay way ka ogolaan waayeen haddaba inankii muxuu sameeyay inankii wuxuu yiri okay anigu reerkan isqa qabsamayno ku qayqaylimayno waan sugaynaa intay i baranayaan way arkayaan aniga dhaqankayga way arkayaan saan ku jeclahay iyo muxuu sameeyay inankii dhaqankiisa buu hadaba reerkii so almost waxaan daba soconay sanad iyo badh from barigii ay diidi jireen ilaa ay intay ogolaadeen aakhirkii islaantii inanta dhashay markaan weydiiyay waxaan ku yiri maxaa isu bedeshay hadda maxaad u ogolaatay inankii inuu inantaada guursado waxay tiri waxaan arkay inantayda siduu u dhaqaaleynayo wuxuu ii dhaamaa 100 nin oo Chinese so hooyadii iyo aabihii inanta dhalay baa waxay u sameeyeen aroos aan dhicin iyaga u sameeyay aroos waxay u sameeyeen waliba in a very traditional way runtii walaal filimka intaynaan bilaabin sameyntiisa waxaynu moodaynay inaynu wax cajiiba iyo dad cajiiba oo meel cajiiba jooga inaynu qisadooda ka sheekeen doono laakiin aakhirkii filimkii markaan dhameynay sanadii bar ka bacdi waxay nooga soo baxday in dadku inay isku mid yihiin